بسم الله halkan waa masaajidkii laga dhisay magaalada Wardheer xaafadda saddexaad masaajidkii iyo xaaladdiisa waxaa nooga warrami doona culimadan oo kala ah Sheekh Cabdullaahi Sheekh Axmed Rabiic Macallin Maxamed Cabdi Furre iyo Sheekh Cabdullaahi Cabdi Mursal waxaan ku horeynaynaa Macallin Maxamed Cabdi Furre macallin ka warran masaajidkii iyo xaaladdiisa iyo baaqa aad jeedinayso ma sha Allah alxamdulillahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuuri dunya wa diin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima halkan waa magaalada Wardheer gudaheeda weey waliba magaalada bartankeeda weey gaar ahaan xaafadda saddexaad bay raacsantahay halkan waa masaajidkii koobaad ee dabaqaha ee Wardheer laga bilaabo waad aragtaan maalinkii labaad buu xumaraya shubkii saanqaafkii kore waxa lagu bilaabay dadka muxsiniinta ajeebkooda lagu bilaabay haddana wuxuu ku socdaa dadka muxsiniinta ajeebkooda waxaana rajaynaynaa insha Allah ta'ala ya dhammaan dadka islaamka ah ee caalamka ku kala nool daafihiisa masaajidkaas maanta socdo oo wax dhaqaale oo loo hayaa uusan jirin inay si fiican nagala qayb qaadan doonaan insha Allah ta'ala waxaana ogaataa ninkii masaajidda kan iyo kuwa kale wax ka dhiso inuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam man bana baytan min buyuti Allahi bana Allahu baytan fil janna ruuxi guriga Ilaahay kamida dhisa Ilaahay baa guri jannada uga dhisa annaguna waanu ducaynaynaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa masaajidka cidi ka qayb qaadata inuu Ilaahay maaragtay maalkooda barakeeyo cimrigooda barakeeyo camalkooda barakeeyo awlaadooda barakeeyo dambigooda iyo kii waalidkoodna Ilaahay uu dhaafo aakhiriya adduunna waxay doonayaan Ilaahay uu siiyo kii dad doonaya Ilaahay uu siiyo kii dunya doonaya Ilaahay uu siiyo kii jannada doonaya Ilaahay uu siiyo Ilaahay saasaan ka rajaynaynaa Ilaahayna insha Allah ta'ala uu naga aqbalaya marka muuminiinta waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala baaqaas inay si degdeg uga soo jawaabaan Sheekh Cabdullaahi maxaad daraysaa may waa sidaas masaajidka xaaladiisa macallinka idin warramay marka deynna waa lagu leeyahay muddo dheerna uu socdaa waxa hadda uu u baahan yahayna waa muslimiinta jeebkooda ee laga dhisayo marka waana sadaqada jaariyada ah ee qofku marka uu dhinto u soconaysa saddex shay baa soconaya buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam qofku markuu dhinto idaa maata ibnu aadam inqata'a amaluhu illa min thalatha waxa kamid ah sadaqatun jaariya sadaqada jaariyada ah sida masaajidka oo la dhiso guri oo la dhiso dad oo loo waqfo beero ceel la qodo waad garanaysaa sadaqada wax sii soconaya weligii علمي لغو انتفاع قفكي برا oo sii soconaya kamid ah waladun saalihun yad'u lahu walad wanaagsan oo u soo duceeya kamid ah marka intaba way soo hoosgalayaan waxa laga rabaa muslimiinta guriga Ilaahay sida gurigooda ay u danayaan inay awlawiyada iyo mudnaanta ay siiyaan guriga Ilaahay waad mahadsantiin Allah idin barakeeyo ducadana Allah idin aqbalo ما شاء الله waa intaas ay dhahan walaaluhu ma codkayga xogaa yar xidhay waan ka cudur daaranayaa marka insha Allah ta'ala masaajidkaas waxaan leenahay walaalaha meel kasto ay joogaan maanta ka soo qayb qaateen Allah barakeeyo waan u ducaynaynaa ducada macalinku ugu duceeyana waan maanta waan Ilaahay baan uga baryaynaa inuu aqbalo insha Allah ta'ala wuxuu ku socdaa jeebka muslimiinta haddana waxa uu ku socdaa waa deyn iyo xoolo aan maanta ka soo qaaday dad islaama marka insha Allah روح كستو واحد كشري إلهي وحنا قبرينا إنه مال كسر نفتي سي عقل بيصير دينتي سوا بركيو ما شاء الله داسان إلهي وقبرينا إلهي وحنا قبرينا قف كستو مسلم أو مساجد كل مساجد كلا واحد كشرة إنه إلهي سبحانه وتعالى نفتي سي مال سوا بركيو عقل يا أولاد الله وبركيو إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس ودحل سيو داسان قبرينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته